Wasiirka Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ayaa xukuumadda dowlad-deegaanka Soomaalida ku wareejiyay 50 milyan oo beer. Madaxweynaha dowlad-deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar, madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Mudane Ibraahim Cusmaan iyo mas'uuliyiinta kale ee xukuumadda deegaanka ayaa 50 milyan oo beer oo loogu talagalay horumarinta aasaasiga ee bulshada kala wareegay. wafdi uu horkacayo wasiirka wasaaradda Tamarta iyo Shidaalka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya. madaxweynaha dowlad-deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar oo deeqdan uga mahad celiyay ayaa sheegay inay tahay xilli shacabka deegaanku ay baahi u qabaan in kor loo soo qaado horumarka aasaasiga ah, wax badanna ka bedeli doonto xilligan abaarta iyo kulaylka badan lagu jiro. madaxweynuhu waxa uu sheegay inay muhiim tahay in laga faa'iideysto khayraadka. wasiirka wasaaradda Macdanta iyo Tamarta ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Engineer Taakala Uma ayaa sheegay in lacagahan ay yihiin kuwa ay soo ururiyeen shirkadaha shidaalka, taasina loogu talagalay in lagaga shaqeeyo horumarinta bulshada deegaanka. ujeedada aan maanta u imanay waa sidii shirkadaha waaweyn ee ka shaqeeya shidaalka oo ay ka mid yihiin shirkado ka shaqeeya deegaanka aan u soo gaarsiin lahayn lacag ay ku soo shubeen qasnada dawladda ee federaalka, taasi oo lagu caawinayo bulshada deegaanka siiba dhanka caafimaadka, waxbarashada iyo horumarka kale ee bulshada, laguna caawinayo bulshada ay hayntoodu hooseyso. Engineer Cabdi Xasan, wasiir ku-xigeenka xafiiska Macdanta, Tamarta iyo Shidaalka ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in lacagtan ay wax ka tari doonto kor u qaadida nolosha bulshada. ujeedada socdaalka saaka in lagu yimaadeen wuxuu ahaa lacag ay na soo gaarsiin oo deeq ah. lacagtaas waxaa laga soo ururiyay kambaniyada kuwa shidaalka, kuwa macdanta, kuwa sibidhka, marka lacagta oo loogu talagalay community development-ga. lacagtani waxay wax ka tari doontaa baahiyaha asaasiga ee bulshada, gaar ahaan area-ga shidaalka oo kale iyo shidaalka bas isagoon ahayn shidaalka iyo macdanta kale meelaha laga soo saarayo dadka ku nool aagaas in loogu sameeyo iskuulo iyo horumarin guud ahaan deegaanka oo dhan wixii mataqaanaa hadda loo baahan yahay. abaarana maadaama jiraan lacag laga faa'iideysto oo wax tarta bay noqonaysaa si gaar ah. laakiin lacagahan waxaa laga soo ururiyay shirkado waaweyn oo shirkadaha sibidhka iyo macdanta iyo shidaalka qayb ahaan baana u helay lacagta.